warbaahintii dalkana waa tihiin maalmahanna xukuumadda ayni baacsanaysa horta waa inii tacsiyadaynaynaa laynila xidhi maayo dalkana waa difaacaysiin shir lagu kala kacay ma jirto guud ahaan si wanaagsan baannu u doodnay waana xisbi iyo caadadii kuwa ka baxaad ugu sheeg siciid kama bixin may wax ka cadhoodayna ma jiro khilaafna kama jiro xisbiga cid ka soo baxdayna ma jirto may waa la galayaa may faahfaahintu waa okay shirki caadiga ahaabaa socday ee guddida fulinta may berrina uu sii soconaya shirka keedee maye guddidii fulintaaba maanta shiraysay salaada naga gaadhay berri toolena shirkuu sii soconaya berri toole waxay ka dambeeya soo bixi doontaa mas-uuliyiin waxaa la arkaya afayaan xisbiga ka soo baxay intii aad shirka ku jirteen miyaan la odhan karin mas-uuliyiintaasi cadhay kaga soo baxeen maye dee cadha ma jirtee shirku wuxuu gaar u ahaa guddida fulinta idinku maxaad u soo geli weydeen soo nigama xidhna dee dadka taawun bay lamid tahay tihiine warbaahintii dalkana waa tihiin maalmahanna xukuumadda ayni baacsanaysa horta waa inii tacsiyadaynaynaa laynila xidhi maayo dalkana waa difaacaysiin shirkii xisbiga fulintaa socday berrina uu sii soconayaa dee waxbaba ma jiraane maxaa kaaga warramaa shir lagu kala kacay ma jirto guud ahaan si wanaagsan baannu u doodnay waana xisbi iyo caadadii xisbiga ayaa wuxuu yahay xisbi tala badan oo awood badan oo dalka 14 sano soo maamulayey waannu ku khasbannahay inaannu xisbiga si turxaan bixin iyo waayeelnimo ah aannu u dhaqno marka wax dhibi ma jiraan cidis haysaana ma jirto hoggaanis hayaana ma jiro aad iyo aad buu xisbigu taladiisu meel fiican u maraysaa annagu xisbi baannu taladii haynaa ya kulmiyo waa loo tartamayaayo yuusuf cali koorahan maley uu doonayo inuu madaxweyne somalilan kaga noqdo weli hawshaasi waa waynu isugu imaan doonnaa wakhtigeeda aad iyo aad baan idin salaamay kugu idhahdaaye inan mararna soo guulaystay mararna guuldaraystay soo maaha marka waanu xisbigayaga dhexdiisa unbay taladu ka socotay markaa sidii aanu shirkayagu qaban lahayn iyo sidaan xisbiga waxaad nooga sheegi kartaa maantana wax xubnaha soo baxay ka cadhooday shirka maxaa jira may wax ka cadhoodayna ma jiro khilaafna kama jiro xisbiga cid ka soo baxdayna ma jirto markaa waa wararka ku tirugtaanka ee dibaddaahe wax khilaafo waxba kama jiraan wax alliyo wax gudaha ka dhacay haddii xaqiiq la doonayo ma jirto wax cadho ka soo baxaynana maanu arag xisbiga oo lagu waday bisha tobnaad dib baa loo dhigaya arrintaas ilaa hadda ma jiro wax dib loo dhigay waa istiraatiijiyadii loo marayay ayaa la habaynaya dee xisbigu waa xisbi weyn doorashadii maxaan ku dhahdaa dee dhibaato badan ay ka soo gaadhay oo dhacay kulmiyo dhiig cusub lagu shubaya hoggaanka waa la bedelaya kulmiyo hoggaan buu leeyahay marka shirweynaha la tago ka hor dhici maayo unbuu hoggaan laakiin kulmiyo imika hoggaan buu leeyahay mujaahidka maxamed kaahin baa hoggaamiya inaad joogtaan iyadoo saxaafaddii oo dhan inteedii badnayd aan filay maanta inay ku sugan yihiin xarunta guud ee xisbiga weyn ee siyaasiga ee mucaaradka ee kulmiya taas waxaynu tusaysaa ahmiyadda aad u haysaan idinkiiyo dadweynaha iyo taageerayaasha xisbigan iyo qaranka jamhuuriyadda somalilanba waxaa ka soo baxaya xisbigooda ay sugayeen maalmahan aad baan idinka mahadcelinayaa saad la socoteen waxaa maanta halkan ku shiray guddidii fulinta xisbiga kulmiye oo ay hoggaaminayaan hoggaankii xisbiga kulmiye oo horkacayay guddoomiyaha xisbiga kulmiye mujaahid maxamed kaahin axmed waxaana halkaa maanta aad iyo aad iyo aad lagaga hadlay sidaad ogtihiin xaaladda dalkeena maanta uu ku sugan yahay ee jamhuuriyadda somalilan ayuu maanta aad xisbigu ugaga hadlay waxaa aad loo lafaguray marxaladda maanta qadhaadh ee dalkeenu uu ku jiro oo ay tahay in xisbigani uu aragti siyaasi ah ka yeesho sidaad ogtihiinba xisbigan wuxuu ka mid ahaa saddexdii xisbi ee dalkan ugu horreeyey wuxuu ahaa saddexdii xisbi ee dalkan ugu horreeyey ee lagaga dhawaaqay laba xisbi oo ka midii meeshu ay ka baxeen wuxuu noqday xisbigii saddexaad ee soo hadhay isagu xisbigan oo waaye aragnimo badan u leh dalkan marka halgankiisii iyo dibudhiskiisii iyo wanaagga qaranka jamhuuriyadda somalilan la eego wuxuu maanta wax iska weydiiyey arrimaha aan idiin sheegayo ee ah xaaladda dalka maanta ku sugan yahay qodob labaad ayuu xisbigu maanta isna ka hadlay oo ah howlihii xisbigan u yaalay isaga gudihiisa xisbi ahaan u yaalay oo ay ka mid tahay sidii loo gaari lahaa shirweynaha soo socda
iyo xilliyada uu qabsoomi doono dood dheer oo aad u dheer badriyo horta xaaladda dalku ku jiro iyo xisbiga xaaladda dalku ku jira weyn maanta sidaad sheegaysid arrimahan la leeyahay khilaaf baa ka jira xisbigan wax khilaafoo ka jiraa ma jiraan hoggaankiisa isagoo mar walba gacmaha is haysta mar walba isagoo qoslayaad aragtaan laakiin mid baan idiin sheegayaa caafimaadka xisbiyadu wuxuu ku jiraa in la doodo dooduna khilaaf ma aha dooddu waa dawo xisbigan kulmiyana wuxuu weligiiba ku ahaa caan inaanu ahayn xisbi dictator hogaamiyo oo yeedhiya wuxuu ahaa xisbi mar walba gudihiisa laga doodo marka doodda iyo khilaafku waa laba arrimoo kala duwan weye marka xisbigan horta wax khilaaf la yidhaah kama jiraan xisbiga waa xisbi guura oo way araga waxaa hogaaminaya rag soo hogaamiyey shirar kuwan ka waaweyn rag iyagoo duurka jooga shirar hogaamiyey waxaa hogaaminaya dad waayey araga marka xisbigani waa xisbi furan oo qof kastoo maanta ku cusub iyo kii weligii joogi jiray aragtidooda dhiibtaan taasina khilaaf maaha guddi magacaabiso dib u dhacda ma jirto waxaa weeye waxaa loo wadaa broceskii shirku ku qabsoomi lahaa iyo wixii hadba soo kordha maanta dalkeena shirka waxaa go'aamiye marka waxaa la go'aamiyaa xilliga dambe xilliyada la qabanayo laakiin imika waxaan ku sheegaya maanta dalkeennu marxaladuu ku jiro iyo arrimaha shirka xisbigu waa doodaha uu xisbigan u fadhiya maanta marka waa laga doodi doonaa insha allah waan ka mid odayaashee waxaa idin hadli doonaa mataqaanaa dee hoggaanka xisbiga iyo guddi laguma dhawaaqine hoggaanka xisbiga aydan hadli sidiinna waa torjar warkana waa laydin siinayaa shaydaanka iskana soo war ma doonaysaan kuwa ka baxay adigu ii sheeg siciid kama bixin hawl buu lahaa hawl buu baxay lahaa markeedaan sheegi doonaa haddii la idhahdo markeedaan sheegi doonaa horena han waanu lahaa markeedana waan sheegi doonaa ku habboon tahay iminka horta markay ku habboon tahayna waan sheegayaa xilligeedana waan sheegi doonaa maray ku habboon tahay gudoomiyayaashan ku weydiinayaa saad u aragtaa shirkii shalay ka soo baxay deegaankaagii mid ka mid waxaasoo dhan waa laga wada hadli doonaa waana arrin xisbi arrinta xisbiguna iyo arrinta reeruhuna waa kala duwan yihiin arrimahana waa laga wada hadli doonaa waana la shaacin doonaa waana la sheegi doonaa waana mahadsantiin shirkii guddidii qabanqaabada loo magacaabayay shirweynaha bal ugu horreyn maxaa ka jiray howlka bal annaga iyo bulshadaba nooga wada ma wax guudun baa la sheegayaa shirkaasi shir si fiican buu soo dhammaaday wax dhiba guddoomiyaha ayaa guddoominayay shirka barrina waa laysugu soo noqonayaa wax allayaalo wax dhibi kama jirto shirkuna wuu soconayaa khayrna fisha insha allah wax khilaaf ma jiro